intuu bajaajka ku soo qaaday ilmaha waa gabar iyo wiil gabadha waxay jirtaa 8 sano wiilkan wuxuu jiraa 6 sano maxamed bajaajku ku soo qaaday waa nin weyn oo bajaaj la ah bajaajku ku soo qaaday ilmihii bajaajka meeshuu ugu geyn lahay aabahood uma uusan geenin wuxuu geystay meesha qabriyada markuu geystay wiilku wuxuu yiri bajaajka kama soo degi karto wariyaa hadaa ka soo degto nafta ku dhaafina gabadhina gacanta ka qabtay wuxuu geeyay qabriyada mugdiga ahay gabadhiyo qaylinayso gacmahana ka xiri lugahana ka xiri wuuna ku kufsaday kadib maxaa dhacay nakay qisadan wada dhageysanay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا مركلة الحمد لله هي سيتهين عفيماتكين أنا الحمد لله عفيمات نقصوك عني باش برواقو الحمد لله إن كان حايدين رجينا تاس يتلمد إن شاء الله ما تقصوا حايدين وضع إلمها إن لأجهزه إلمها قف ما تحملوا ديبه قف والبلسيجة ما ديبه إلمها أمانة إلهي نسيوه intay yariyihiin adeeg u baahan yihiin markay weynaadaan xoogaab ilaahay siiyey oo xoogooda wax isaga dhicinayaan laakiin ilmaha intay yariyihiin masaakiin waaye aqligooda waa yaryahay waxa waaye nasadooda way yartahay xoogooda waa yaryahay wax iska ma celin karaan ilmaha hala ogaado qaraabo iyo qansax iyo qofaan la aqoon iyo saaxiib guryaha loo soo gelinayo mase loo dhiibaayna hala joojiyo ilmaha haddaa 2 indhood lahayd 4 indhood la helo mafahant haddaa 2 dhagood lahayd 4 dhagood yeelo maxaa yeelay ilmaha waxay u baahan yihiin double control ilmaha waxay u baahan yihiin xanaano extra ilmaha waxay u baahan yihiin waardiye xoog leh ilmaha inta iyaga ku xoogeysanayaan ee hadhow qofka iskaga dhicinayaan waa adiga waalidka ah ilaahay wuxuu waalidkaaga dhigay oo ilaahay awlaadaanaytay rabbiga kuu siiyey mas-uuliyadooda kuu saar waa inaad ogaataa mafahanteen قصدان ما أنت بحكي صار تاعي ويل بجاج لا ويل كان بجاج لا صوب بجاج كانوا كوش قستا غيره يا شيء وقرصدي إلى الحسي اللي بدأت أسقي حاسكي وإسكين واي بني آدم كعدل إسكين واي الله قاصع ولا كل مرة إلهي الله قاصع وبقولي لو ضغط فوت فهمس إنه كل مرة لو إسفهمتن يسوق تمام وإسفهم وايين ويكلتين مركب يحكوا هالشيين المهان إن كان ننفي عنه هاي إنه ريركيسان بيلكودا siiyo gurigooda ay deganaadaan asna gurigooda iska degay biilkooda siiya ilmihiisa ogaada iskoolkooda ka baxsha daawadooda ka baxsha dharkooda siiya labadii wiigina 2 maalin oo fasax uu leeyahay labadaas maalinna waxaan lahaa ilmihii asaga ayaa haysto sidii saas oo ahayd eesas ugu wada dhaqmaayeen eesas ugu joogeen ayaa maalmaha ka mid ah waxaa dhacday sabti axad markii aan sabti axad waa anaga markay dhinaca joog laakiin dhinacaan wadamada islaamka waa khamiis iyo jumco iyadoo ayuu wacay xaaskiisa wuxuu yiri gurigan joogaa waxaan rabaa ilmihii sidii caadadii ahayd inaan haysto waayay tiri wuxuu yiri maxamed aan ku soo diranaa maxamed waxa waaye waa saaxiibkiis bajaajka ninkaana iska leh oo carruurta dhalay laakiin maxamed saaxiibkiis waaye maalinta khamiista iyo jumcaha waxaa ku shaqeysto maxamed oo faa'iidadii ka qaataa yani wuxuu u keenaa lafihiisii ninkan yani wuxuu u keenaa lacagta waa la kala goostaa markuu soo shaqeeyo ninkan wuxuu ugu soo baxay yoomiin oo ka qaataa ninkaneetin lacagta uu lahay gaarigaas oo kas lahay lafiis ahay ayuu iska dhiibaa yani kiro ugu qaataa maxamed laakiin waa saaxiibkiis wuxuu u dirsaday maxamed wuxuu yiri maxamed bajaajka maanta bal adaa qaadanaya ogtaa sida caadadeed ilmaha isoo wata يعني ما نقول المها قميص الجماعة أساقا أدونه أوكينا لكن أساقا حال ربي أباتاي سنو بجاج كقاتي لما حمد نكعي وأقول راعي المها صوبة أنا أقول لكي نوضي هدو مركو عليها دان راعو يراهي يسو ريجي بس وكاقنا ما تلوض مالي مو أوصن سميني ما نقول أساقا أدر صدا ما أنت محمد وحو سمي المهي مركو صوبي المهي قولي توس ومكين أبهوت وحو سوغاي مدس 6 ساعات وطا wuxuu wacay hooyadood ilmaha wuxuu yiri ilmihi wixii tiri markuu maxamed ii yimid ay ii soo dirtay ayaan ilmihii ku soo daba daray ilmihi maxaa la dhahaa wawalwale maxamedkii wacaa taleefon ma ka qabana wacaa taleefonka ma ka qabana asagoo aabihii ay asaga dhan maskaxdiisa joogin ma joogtaa ma fadhiistaa ma kacdaa yani waa ogtahay waalid walwal galay taagan yaaban ayaa 3 saacadood markay kusoo wareegad maxamed ilmihii asagoo wado ayuu keenay laakiin ilmihii
aabihii controolka ilmihii ma uusan saarin hooyii aabana isku mid maaha wuxuu ku cindi cadeeyey maxamed wuxuu yiri intaa kula maqneed aaway ilmihii maxamed wuxuu ku cindicooday wuxuu yiri ilmahan hooyadood waxay ii dirsato yiri adeegii markaa oo keenay wuxuu jiru yiri ilmahan magaalada bajaajka kula wareeji kadib ugey aabahooday jira marka aniga waxaan qaatay amarkeeda saasaan sameeyey wuxuu yiri waxaa sameysma wax fiican maaha mar dambe ma sameyn karto leh taleefankan waa iga qabataa control ma saarna ilmaha indhaha taagtaaga masaakiinta wada naxsan ma uusan la hadlin waa iska waday ilmihii guriguu geeyey wuxuu yiri xaaladin ma fiicantin waa shiba iska yiraahdeen ilmihii ma uusan daba dhigin ilmihii cunto u korsaday ilmihii inay ilmihii la joogaan camal ma uusan yani interest ma saarin yani ilmaha waxay u baahan yahay interest in la saaro ilmaha in wejidooda la fiiriyo ilmaha in lala sheekaysto ilmaha in la ag fadhiisto intay ma uusan sameyn aabahan ilmihiisii cashoo siistay cashadoodii cuneen ilmihii tii yaraad iyadoo ooynayso iska ooynayso ooyinteeda qarsanaysa ayaa seexatay wiilka nanaxsan yahay markay maalintaa saas ahay maalintii markay hurdada kasoo kaceen jimcay ahayd go-aan waxay ku gaartay gabadhii waxay tiri hooyaday maahane cid kale ma rabo oohina meel la fadhiisatay hooyaday maahane len aabaan ma dareemoy wax ma weydinoy hooyaday u baahanay tir hooyadooda waayo wuxuu yiri ilmihii ayaan ku keenayaa bajaaj kaloo soo qaatay oo kira ah ilmihii usoo waday wuu u keenay ilmihii markuu u keenay hooyadii horey ka dareentay ilmaheeda inay wax ka qaldan yihiin ilmihii fiiris waxay tiri maxaa ku dhacay wax sheegaya male gabadhay la fadhiistay maxaa kugu dhacay hooyo wax sheegaya male hooyadii waa kabeelweyso waxay tiri ilmahaagii wax waabay ku dhaceen abiin wax idinku sameeyey mani la dilay dhib maa qabtiin yax idinku sameeyey maxaad aragteen qof sheegta waa la ogay adiga gabadhii ag fadhiisatay gabadhii oohinta isku celcelinayso gabadh inta ag fadhiistay ee salsalaaxatay tiri hooyo maxaa kugu dhacay hooyo wax waaba kaa qaldan yihiin maxaad aragtay yaa wax kugu sameeyey maxaad aragtay yaa dhibaato kugu sameeyey ii sheeg hooyo macane hooyo waa ku baryaa ii sheeg kaama tagaa adoon ii sheego cunugta waa uysi markay uysii tiri hooyo dhib waa jiraahe dhibka xagoo ku jira gabadhii oo bilaawday waxay tiri maxamed waana watay waxay tiri hooyo woon soo noo wada meel hulli oo mugdihoona geey haye wuxuu yiri tiri walaalkay kama soo degi kartid haddaa kasoo degtin waa ku dilaa haye wiilkii bajaajka ku celiyey haye aniga gacanta iga qabtay haye hodka oo maxaa lahaa qabuuraha oo igriyey haye ano waa ooyi tiri markaan ooyi wuxuu dhihi tiri us ma hadli kartid waxay tiri ano ooyinta isku celinayn oo ooyina cabsanayt waa ilmo yaroo 8 sano jiro wiilka 6 sano jira gabadha 8 sano jirta waa ilmo yar 8 jir us yiri markuu us yiri gabadhii waa cabsadii tiri ooyintaan isku celiyay tiri xirgo wataa jir gacanta ku wataa jeebka kala soo baxay labada gacmood oo iga xiray anoo ooynay leeyahay adeer dhaaf adeer hay xirin adeer dhaaf adeer hay labada lugood ma iga xiray tiri labada gacmood ma iga xiray tiri darkeen waa iga sii biyay tiri meesha uu kufsaday tiri waxaan umada lagu sameyn oo igu sameeyay waxaan umada lagu sameyn oo hooy igu sameeyay tiri hooyadii intay calool xumaatay ee waxay sameysay kasii ee kacday ee fariisatay ilaa ma calool xumo wax ka weyn ma jireen ayay aabahood wacday wixii jiray u sheegtay waxayna tiri ugu isbitaalka iga doortay isbitaalka u wadaa gabadheeda wiilkeeda wada isbitaalka gidi wiilka la baaray waxa la saliima gabadha la baaray wuxuu soo sheegay dhakhtar sharciyeysan waa dowladda iskale dhakhtarka wuxuu soo sheegay gabadhan jinsiin in la xoogay kufsi loo geystay subxaanallah booliiska la geeyey waraaqada la ordaha booliiska la geeyey booliiska markii la geeyey waxaa la soo qabtay ninkii maxamed ahay alla soo qabtay maxamed markii la keenay wuxuu la yiri sababtaad ilmaha yar u kufsatay maxay tahay jawaabtu dhiibay maxamed taqaana ilmo wuxuu yiri hadooba aabahood sidii bombalayaal oo yiri kugu dhiibayo alaab loo dhiibo camal ee maalba siibada soo shaydaanka aniga wuxuu yiri ayaga tiri badiyo shaydaanka ayaa iga xoog badi marka saas darteed wuxuu dhahay ani waxaan arko yiri inuu yiro bacbacoo yiri marka haddii saas lagu sii dhaafi lahayn kolay wiilkan ma dhaafi lahayn asle saas markuu sameeyo wixii dhan ixtiraafka sameeyo yiri haa anaa sameeyey waa sameeyey xirigiisii maxkamadiisa qaadana asagana ilaa waaba qalad laakiin way ku dhacday in gabadhii markii waxay noqotay waxa dhiri iskuulka toos oo dhigan weys ilaa ilmo yar oo dhibaato loo geysto waa iskuulka cunugta toos oo dhigan weys nolosheeda cariidii gashay cunugtii waxay noqotay marad nafsiga dhakhtarka ah in laga dawado cunugtii waxay noqotay inay daawo ka socod noqoto cunugtii waxay noqotay nolosheeda inay cariidi gasho ilmaha cayaar ma ilmaha qof mataa milsaga dhiibo gaar inta iska saartin bax lama dhaho
ma soconays iska dhaaf gaariyada aniga waxaa nacba xataa taksiga oo sharciyeysan xataa cunuga la saara wallahi ma ogoli anaa geysanaa la dhihi lahaa been ma sheegay sharciyo waxaa sharciyeysanaa jiro taksiyaal sharciyeysan oo qaadaa iskoolka geynaa ka keenaya hadduu iskoolka dheeriya iyo ilmaha baahida gaarka qabaan taksiyaal lagu qaado laakiin ani lay wada lahay ani lay keensa lahay lacana wax la aaminay adduunka ma jiro adduunka aaminaad waa ka dhamaatay wax aamin la dhahayo ma jiro marka ilmaha la waarjeysto war dugsiga iska aad ka soo noqo war iskoolkaaga iska aad ka soo noqo ma jirto ilmaha markay yaryihiin isbishaal waa markay xoog ay yeeshaan 13 sano 14 sano 15 sano cunug adiga dheer oo xoog badan waa maasha Allah tabaarakallah ma ku baahna ilaahay shirta isha danka ka qabto laakiin ilmaha markay yaryihiin waxa waaye isha u nugul yihiin waxa waaye ilmaha dadkan saqajaanka oo saqajaannimada ku dhaqmaa sidooda waxay waardiyeystaan ilmaha aan tabarta lahayn xoog lahayn 8 jir 7 jir 6 jir 5 jir 4 jir yani ilma aan tabar lahayn iska ka celi karin ay waardiyeysanayaan qof weyn iska ka celi karo yani xarbiya galay waa dagaalama ma rabaan cunug yaroo miskiin ahoo yani xoog balahan labada gacmood labada nyooqa isku siinaysa rabaan ilaahu sharti shaydaanka naga qabo acuudu billahi min shaytaan acuudu billah subhanallah اللهم نجينا قصدنا ما انت سكتها ان شاء الله قصدنا قصه لمد هذا ليه شيرتا لايك سبسكرايبك انا بقي لنا ان شاء الله فري ما هنا ايتي هضن اونلاين انك هيا الى غير بدن هسي ولا شيء marka waxaan leeyahay sidaas iyo nabadgelyo caafimaad bashbash barwaaqo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu